shirka maareynta qaran ee biyaha oo ay ka qayb galeen maanta qaar ka mid ah xildhibaano ka socday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, wasiiro heer federaal, maamul goboleedyada iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya, agaasimayaal guud ee wasaaradaha tamarta iyo biyaha dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta looga dooday ansixinta yoolalka istiraatiijiyadda biyaha. agaasimaha saadaasha biyaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Maxamed Xasan Kurweyne ayaa ka warbixiyay nuxurka howlqabad ee shirka maanta. ujeedada miitinkan wuxuu ku saabsan yahay in la ansixiyo yoolalka qorshaha horumarinta biyaha Soomaaliya oo maanta iyadoo draft ay hor taalo badan ay ka soo shaqeynayaan tiimka khibrada ah ee aan u xilsaarnay shaqadan qabanayay. qorshahani waa qorshaha 5 sano oo soo socda Soomaaliya hagi doona guud ahaan horumarinta biyaha iyo guud ahaan kheyraadka biyaha ee Soomaaliya. waxaa maanta iyo bari laga naqaashi doonaa tiimam aan u xilsaari doono ka socda wasaaradaha heer federaal iyo private sector-ka iyo civil society-ga iyo dowlad goboleedyada dalka inay ka niqaashaan qayb kasta oo kamid ah strategic actions-ka kamid ah istiraatiijiyada. xildhibaan Daawud Maxamed Cumar oo ka tirsan guddiga kheyraadka dabiiciga ee baarlamaanka iyo xildhibaan Professor Cabdiraxmaan Ibi ayaa ku dhiirigeliyay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya istiraatiijiyadda haatan gabagabada ah xilli sharciga biyaha loo gudbiyay baarlamaanka si loo ansixiyo. wasiiradii maamul goboleedyada waa joogaan, wasiirka iyo wasiiradiisa iyo agaasimayaashiisa waxaan ku dhiirigelinayaa runtii in ay istiraatiijiyadan meel mariyaan oo la gaaro in yoolkan uu noqdo yoolkii ummadda Soomaaliyeed ee runtii ku gaari lahayd danihii laga lahaa iyo ujeedadii laga lahaa ee biyahan qaarna lagu xakameeyo qaarna loogu qodo meelaha qaarkood ceelal. sharcigii biyahana almost annagu waanu gudbinay haddaanu nahay guddida biyaha iyo kheyraadka. golaha baarlamaanka waa dhaafay, aqalka saru jiraa baan filayaa isagana insha Allah inuu dhammaystirmo baanu rajaynaynaa. wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan oo ka hadlay shirka ayaa ballan qaaday in ay wasaaraddiisu kala shaqeynayso si loo dhammaystiro baahiyaha ay wasaaradda tamarta u qabto si ay u dhammaystirto tallaabooyinka mustaqbalka dhow. waad ku mahadsantihiin soo dhammaystirteen istiraatiijiyadda sanadka dambena fulintii oo wada joogna haddii alla idmo. naga qorsheynta haddaan nahay dhaqaalana wadana raadinaynaa inta tabarteeda waxaan ku caawin karnaa ku caawinaa saaxiibada kale wasaaradaha kalena sidaas oo kale arrinteena ahmiyad gaar iska saaran way. wasiirka tamarta Soomaaliya mudane Xasan Cabdi Nuur oo ka hadlay gabagabada shirka ayaa sheegay inuu isagu filayo in ay wax u wanaagsan ummadda Soomaaliyeed ka soo baxaan shirka, isagoo u mahadceliyay hay'adaha gacan ka siiyay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha qabsoomidda shirkan. hawshan qorista istiraatiijiyadda qaran waxaan rabnaa inaan si gaar ah uga mahadcelino oo naga kaalmeeyay hay'ada badan oo ay ugu horeeyaan hay'adda UNDP iyo hay'adda UNICEF insha Allah iyo cid kasta oo ka geysatay gacan. waxaan sidoo kale si gaar ah uga mahadcelinayaa wasaaradda kheyraadka iyo biyaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee heer federaal iyo wasaaradaha heer maamul goboleed oo dadaal badan iyo juhdi badan geliyay sidoo uu qabsoomi lahaa shirkan. Maxamed Nuur Maxamed Abuukar, warbaahinta qaranka, Muqdisho.